الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الكين بخيارتها وضع نقدها ونيساي ملك استوى الدنيا كجوكتان كل صود وهذا برنامج قارون كويجي دونه بندق هدها يدقن كالصومالية دا كاسي ولو قبتي سكول كالفرقان وبرنامج هالك اللي كلا سعسير يدين سوتشدين يا هدي الله ودر وقلاداني وحسن عثمان أنا حسن دقيره أدا وشون أحسن. bandhigii tahay dhaqanka Soomaaliyeed oo muddo 2 cisho ka soconayay iskuulka Al-Furqaan ee magaalada Baran ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay isla xarunta iskuulka hoose dhexe sare Al-Furqaan ee magaalada Baran. bandhigan ayaa wuxuu qayb ka yahay bandhigyada hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo sanadkiiba hal mar lagu qabto iskuulka Al-Furqaan ee magaalada Baran, iyadoo bandhigyada noocan oo kale taana looga gol leeyahay soo noolaynta hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. bandhig dhaqameedkan oo sanad walba ay qabtaan ardayda fasalka saddexaad ee dugsiga sare Al-Furqaan ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka heer gobol ilaa heer degmo, qaar ka mid ah isuduwayaasha wasaaradaha gobolka, waalidiin, odayaal dhaqameedyo, isimo aqoon-yahano, ururada dhalinyarada iyo haweenka, gudoomiyihii hore ee gobolka Mudug Tigey, koox filan qaadayaal oo ka socday hay'adda cilmi baarista BDRC, abwaano ay ka mid ahaayeen abwaan Shube iyo abwaan hori gacan yare, qaar ka mid ah qoraayada Soomaaliyeed oo ka mid ahaa Sakariya Rabiic, qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Baran oo iyagu bandhigan aan u kala harin, iyo marti sharaf kale oo bandhig dhaqameedkan lagu macsuumayo isaga kala yimi gobolada dalka. waxaana munaasabada furay maamulaha guud ee iskuulada Al-Furqaan Cabdicasiis Axmed Saalax, kaasi oo u mahad celiyay ka soo qaybgalayaasha bandhig dhaqameedkan iyo ardayda fasalka saddexaad ee dugsiga sare oo iyagu bandhigan soo qaban qaabiyay. waxaan soo dhaweynaynaa inagoo reer baranooda, inagoo iskuulka Al-Furqaan marti sharafka ka timi gobolada Puntland oo runtii waqti soo huray wadana aynu garanaynana soo maray meelo fogfog ilaa Mudug ilaa Nugaal ilaa Bari ilaa Karkaarna ka yimid. waxaanu leenahay dibtum wadaaba mushaakum watabawaatu min aljannati manzila. ilaahay subxaana wa tacaala idinka abaalmariyo socodkiina. waanu soo dhaweynaynaa abwaan Shube, gudoomiye Tigey, abwaan Hoodi, kulligood waxaan leenahay ku soo dhawaada gobolka Sanaag degmada Baran dugsiga Al-Furqaan. BDRC ayaanu si gaar ugu mahad celinaynaa oo barnaamijka suuqiisi mugle nogala qayb qaadanaysa xagga miidiyaha iyo barnaamijyada. waxaan ugu mahad celinayaa ardaydii fontriga oo barnaamijkan qabanqaabadiisa iyo soo bandhigidiisa in doora ka qaadan doona insha Allah. waxaan ugu mahad celinayaa waalidiinta ardaydaas oo si fiican, gaar ahaan hooyooyinka oo si fiican uga qayb qaata sanad kasta marka ardayda fontrigu barnaamijka ay soo bandhigayaan. waalidiintaas aad u mahadsan yihiin. dadweynaha reer Barameed, aqoonyahanka, iskuulada, maamulka gobolka iyo degmada oo iyaguna mar walba u heegan dhiirigelinta iyo horumarinta dhaqanka, aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa. hadalkaygu waa soo dhaweyn iyo mahad celin. bandhig dhaqameedkan ayaa waxaa lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed sida ciyaarta jaandheerta, ciyaarta leelada iyo ciyaarta shirbaha. sidoo kale bandhigan ayaa waxaa lagu soo bandhigay heesar lagu dhiirigelinayo dhaqanka, maansooyin ku saabsan samaynta aqal Soomaaliga ee Soomaalidu ay caanka ku tahay, suugaan dhaqameedyo ku saabsan guurka dhalinta Soomaaliyeed, hees hawladyada ay habluhu qaadaan marka ay tumayaan badarka iyo marka ay cawsaska aqal Soomaaliga ay samaynayaan. sidoo kale waxaa madasha laga tiriyay gabayo ku aadan dhaqanka iyo hidaha Soomaalida. haddaba bal markaan aan wada daawana suugaan dhaqameed ku saabsan hasaawaha dhalinta Soomaaliyeed oo dhalinyarada fasalka saddexaad ee dugsiga sare Al-Furqaan ay goobta ka tiriyeen.
garogo laba saar mar haddii aan aragnay wiilashii bal markana aan indhaha u furno gabdhihii oo yiri ma doonayno nin qayilaya waa kuwan laba hablood oo kamid ah ardayda iskuulka Al-Furqaan ee bandhig dhaqameedkan soo qabanqaabiyay هذا كي يطلع فيه من نقول ما بسلاي
الحاسم قالوا هدي المقورون فإذا يهجوسا وحقوق الحياة صارتي ممسيو قفنا ما شودا قفنا ما كتماتا فإذا يهجوسا faadumo axmed saalax guddoonka ururka dawliga ee haweenka gobolka Sanaag ayaa iyana fariin suugaaneed ku aadna dhaqanka u dirtay hablaha Soomaaliyeed iyo dhalinta gayaandoonka gabdhaha Soomaaliyeed waxaan su'aalayaa gabdhow dhaqankeena maxaa fasaxay farsamadii naday farahaad ka qaadan jirteen fasaxankii aweyn firinkii eeyadeen haloolkii darintii agabkii wanaagsana awaya qarkii tankiyo farahaba lahaa away gogashigankiyo gashiyaha lahay dhulkaniyoga oraho ged walbiba ku yaal gargoorkiyo cawdi labaduba galgaal bax tahay maxaa ugadilaba inaad gabaadsatan firimadi warka iyo barahooyinkii go-oyarinada welkii la gaadan jiray siraarkii away salabkii awoowaheen carabgalkiyo maxaa habihii la tegay away qabadii qarbadkii biyaha qabow qarabeedii meeye iyo qafa xeeradii nameedawelkii cula ee carfiga lahaa isumacedodin oo caadad kuma bedela hayeeshee waa janjartaye weli maquman waxaanay dadka dabada lahayniya ee haweenaw garasha keeno gadaalu noqo hideemi waa gababsiye haloo gurmado oo inti garanaysi waa inayu goodiga oo gacanta hala saro oo gaabisi aanu noqo ragogestada garaba lagaa rabaa ragogestada gacanba lagaa rabaa hanaankii gurka waa inaad hagaajisa gabdhaha gacalkooda waydiso geeladi sabayiina wabaaleynayaad ka gey baridadii hoyo waa inaan la beedaray dacabad guduudan iyo daquliga hasadi xasigyada ay goblayaan guryaha hagey garafaha geela lagu maalay gorobka xoor oo gabadhiyana qalgalgamayni maregeyan abwaan shube ayaa isna madasha waxa uu ka tiriyay gabayga hubka dhiga waa hargabsanayo hargabda aad yahaya waxa ka bagay haddaan aano dagaalka ilaa la sii raacdo ee habeenkii loo goorta soo dhacayna ilaahay baa halkaygooda waxaan rabaa maadaama waqtigu iskeel yahay laakiin aan waqtiyo badan heli doono bal inaan tumiyo gabaygaa la yidhaahdo hubka dhiga dagaalkana usu yahay dacwaad هذا كما عباسو دنيا والدان هيبه ما هيرادين ما سوي كيانا عمنتيو وحان ugaha kabay wabshada hadiyaanteeda wartan dhibaatada hashay iyo adimadii taabtay wartan ku yaaligay iyo horanadii sheegay waxaan hayoy in ka kaca la ilaahiyay oo yiga kada waayay baan heegay tiriyay hayeeshe wixii ku mudhan oo aadan huri doonin inkastoo la tabarteeda ahayn waa la hubiyay dad baa iiga haray looma gabo hawla leedahay baliyo waxaan hulaabtada ticday himad
tilaabtii iyadoo haldoon loo xushay oo hubanti loo shiilay sida awsarka iyo BM-ka iyo hugunka muurtayga awaarta meesha la rabo aan mid kaga sii kuwaan waa haraami jiray aan ku habo shiishka watada wadani aan ku rido waqay haleeshee aan halista beerka iyo wadnaha aad u halakayo soomaalidan amarku helay aan hal ku ilaahdo wixii lagu halligay baan gartaye aan hadda u sheego habwadkiiyo qaxootiga hundura aan hawo u muujo hantida eebba siiyey iyo nimcada aan u hebelayn kow hawo aan baraflayn iyo hurri iyo hadow ku leefaya hir caleen leh hawd iyo bannaan doogbu ka hanaaday osob hawray hadaflaan ku yaal hamashka oo raacay warkadiyo nagaarka isuwaday higirka doomaarta oo maanta midhaheed baxday ee haybta boqol nooca heeliga bislaaday iyo abqada quraca hoos taalla hambashada canjeelka iyo gudda iyo heedda dhuguceeda hawsgeel hurweyn iyo galo qaalmo wada hoora hadeerada irmaan oo nirgaha loo hintiqinayo ari heelad buuxshay iyo lo iyo haybadulow faraska hara buuxda webiyaal hifa iyo ilaha hooraya bad hareer kastaba kaa xigta oo hodana oo buuxda innaga oo intaa heli kara oo aan cid kala haysan waxa hoborka cayreedna baday waa nabniw mas-uuliyiinta dowladda ee ka qaybgalay bandhig dhaqameedkan iyo qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha bandhigan kuwaas oo isaga kala yimid gobollada dalka iyo gudaha gobolka Sanaag ayaa iyana madasha hadal ka soo jeediyey dhammaan bulshooyinka ka soo qayb gashay xafladan quruxda badan ee hidaha iyo dhaqanka ee ay qabtaan fasalka saddexaad ee dugsiga Alfurqaan sanad kasta waxa la joogteeyo oo maalin kasta waa lagaga xisaabtamaya hawsheeda iyo culeyskeeda ay leedahay isxilqaanka iyo soo dhaweynta iyo martigelinta iyo soo bandhigidda iyo xusuusinta qalabka hidaha iyo dhaqanka aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa iyo heesaha iyo ciyaaraha iyo dhammaan barnaamijyada kala gedisan ee maanta iyo maalmaha kale ee loo socon doona barnaamijka bandhigga hidaha iyo dhaqanka iskuulka Alfurqaan wuxuu u dejiyey ujeedooyin looga gol leeyahay oo uu ku dhisan yahay ama uu ku taagan yahay ujeedooyinkaasna waxa ugu waaweyn soo noolaynta hidihii iyo dhaqankii Soomaaliyeed ee rumay ama gabaabsiga dhaxalsiinta da'yarta hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee sharafta leh iyo fahansiinta da'yarta iyo ubadka soo koraya inaan leenahay dhaqan suuban habboon oo diinta ku qotoma ka hortagga dhaqamada qalaad ee khatartayna ku haya oo layna qaadsiinayo sida cudurrada la isu qaadsiiyo ayaa dhaqamada la isu qaadsiiyaa shacabka la horumarinayaa quruxda badan iyo maamulka degmada iyo gobolkaba aad iyo aad anoo ku faraxsan waan idiin salaamayaa waxaan halkaan ku matalayaa magacayga iyo magaca xarunta horumarinta cilmi baarista Puntland ee PDRC sharaf iyo karaamo way noo tahay inaan xafladan munaasabada sida aan eegaan kala soo qayb galno mawduucana u soconay waa mawduuc baaxad weyn waa mawduuc muhiimad weyn leh waa mawduuc laakiin inaynu fahmno ay ka muhiimsan tahay intaynan u dabaaldegin mawduucan dhaqanka ah waa mawduuc nolosheenna ku meeraysan laakiin aan u baahannahay inaan hadda dhinacan ka istaagno si aan u aragno anigu waxaan rabin hadalka inaan badiyo dhaqankeennu ma dhimana weli waa noolyahay welina awood buu leeyahay nolosheennana asagaa xukuma aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dadka soo abaabulay oo leh arday iyo macallimiin iyo maamulba
dad walba oo adduunka ku nool waxay leeyihiin hiddo iyo dhaqan u gaara isagayna ilaashada waxaa laga yaabaa soomaalidu intay hiddahooda dhaqankooda ka tagaan inay hiddo iyo dhaqan dad kale qaataan taas waa arinku waxaan kula talinayaa gabdhaha wiilasha macallimiinta in lagu dadaalo in lagu dadaalo barnaamijkaas hiddaha iyo dhaqanka in lagu dadaalo oo qof walba hiddihiisa iyo dhaqankiisa shariifka ah oo suuqa u ilaashado wixii xumaana uu iska tuuro sida in hidduu loo ahaa gabdha qaaqaawan iyo caynkaas oo kala laakiin wixii wanaagsan aan ka soo qaadayno dhanka abaabka xumida oo dhaqashada nidaamkeenu u noolahay waa wax aad u macaadiid aad iyo aad baan u taageersanahay aad iyo aad baan la soo dhaweynaya dhammaan waxaan salaamayaa marti sharafta isugu timid munaasabadan quruxda badan mas-uuliyiinta iyo mudanayaasha iyo mid walba meeshiisa salaantaa ka qaata asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa kadib runtii aad baan ugu faraxsanahay munaasabadan soo noolaynta dhaqankeennii soo jireenka ahaa oo maanta halkaan lagu qabtay sanadkii 6aad lasoo bandhigaa ummad walba oo adduunka ku nool jiritaankeeda wuxuu ku xiran yahay dhaqankeeda waxaa xaqiiqaha ummaddii dhaqankeedu burburo jiritaankeedu waa burburaya dhaqanka runtii waxaa sal u ah luuqaddaa sal u ah waxaa sal u ah sidii hadda shalay munaasabadeenna aynu ka arkaynay dhaqankeenna suuban hooyadaa sal u ah waa ma aragteen afka hooyo dhulka hooyo hooyada soomaaliyeed waa midii wax alla wixii dhaqankeennu ku salaysnaa halkaan farniijarka yaalla iyo qalabka yaalla iyo aqalkan waxoo dhan raggu waxba kuma laha waxaa iskale hooyada soomaaliyeed baa leh hooyada soomaaliyeed warshad bay ahayd hooyada soomaaliyeed barbaarisana way ahayd oo ninkii soomaali ah ee geesi ah ee hogaamiyaha ee sharaf leh ee taariikh leh ee suugaan leh hooyaa dhashay oo soo barbaarisay dhibaatada oo dhan soomaaliya waxay ku ururaysaa hooyo haddaynu rabno marka dhaqankeenna inaynu noolayno haddaynu dhaqankeenna jecelnahay hooyada soomaaliyeed waa inaynu u helinaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo kaldhaqameedkan aadka iyo aadka qiimaha u leh oo qayb ka ah dhaqankeenna soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyaradeena la tusayo naguna boorinaya wanaagga uu dhaqankeenu leeyahay runtii waxaan rajaynayaa fariinta uu dirayo kaldhaqameedkan inuu yahay oo keli ah in aanu gaadho isku filaansho aqalkeennii hore iyo soomaalideennii hore dibadda waxba kama keeni jirin dhammaan baahiyaha loo baahan yahay ha ahaato mid cilmo mid guri iyo mid labis iyo mid guur iyo mid dhaqanba waxaa lagu samayn jiray waddankeenna fariinta uu dirayo kaldhaqameedkani waxa weeye in muxuu ahaa aanu isku filnaano insha allah niman dhaqankiisa baran waxba uma dhaadhacaan niman dhaqankiisa baran waxba uma dhaadhacaan halkudhigaas wuxuu ku qoraya boorka marka su-aashu waxay tahay dhaqankan iyo sugaantan iyo aqal soomaaligan qaybaha kale duwan laga sheekaynayo dhaqanka soomaaliyeed ma dhalashaa mise barashu u baahan yahay waxaa moodaa inuu dhalasho keliya ahay oo u dhalanay laakiin u baahan yahay barasho waxa halka lagu soo bandhigayaa maanta iyo bandhiga dhaqameedkuna waxaa murtiyeedu ay tahay sidii dadka dhaqanka loo bari lahaa oo loo adkayn lahaa oo loo horumarin lahaa oo loo jeclaysiin lahaa ujeedooyinkii shalaysa laga warramay weeyaan dhaqankaasu marka waxaan isleeyahay waxaa u ah udubdhexaad afkeenna soomaaliga waxaa afka qaadaya ama dhaqankeenna iyo hiddaheenna iyo sooyaalkeenna iyo taariikhdeennu iyo dhacdooyinkii soomaaliyeed meesha laga baranaya waxa weeye oo sugaantuna cabaasan tahay waa afka soomaaliga marka afka soomaaliga oo soomaalinimo aynu u leenahay afka in la xoojiyo oo la ableeyo oo erbixintiisa aad iyo aad waxa weeye loo lafaguro oo waxa weeye xoogga la saaro oo qoraalkiisa la badiyo oo aad u cusboonaysiiyo waxaa maanta farxad inoo ah inaynu ka soo qayb galno bandhig dhaqameedka oo runtii aan rabno in ay inoo noqoto mid noodayna xasuusisa dhaqankii iyo wixii aan lahayn haddii aan ka dhigo waxaan rajaynaynaa maadaama ay sanadkii dexaan tahay in sanadka wixii ka dambeeya haddii aan la idmo aynu samayno xarun gabdhaha lagu baro iyo wiilashana aqal soomaaligii iyo agabkii dhaqanka aynu samaysan jiray alaabta halka taalla waxa weeye wiila iyo gabdhaha waa la samayn jiray marka inaynu xarun samaysano lagu baro dhalinyarada soo koraysa jiirka soo koraya oo hooyooyinka farsamada garanaya ay baraan inaynu xaruntaas samaysano waa laga maarmaan wey insha allahu tacaala
hawshaana ka wada shaqeyno. sidoo kale abwaan cali xuseen Soomaali ayaa isna bandhigan ka tiriyay maansa uu ku tilmaamayo guurka baadiyaha iyo muhiimadda uu dhalinta u leeyahay. da'yartii loo socotee daalada ordaysay hiyadiinan dabadda waxa kaaga dooheen adoo dega miyiga oo darmaan fiid la baxa oo kolka aad la durugtana reer tolo dulgeeyo hibay duqa yidhaahdo dadab kula xeroodo kaalaysta buuyo dayr iyo gu labadaba ku sii daayo sumalko ducadana u miiso markaa daayin ciidankii durba uu bataayo boos dunida joogo dambas weyna baad noqon. miyigeennu waa dahab haddii magaalada xaalad si kugu noqotay miyigeennu waa dahab degantaad ka halatana dah iyo sariir iyo kabar dhowr dacood iyo tuwalley dangiigoo quraarada dul yaallin marna kuuma dirayaan danta waa yaqaanin. ciyaarta leelada waxay ka mid tahay ciyaar dhaqameed ay caan ku yihiin dadka dega gobolka Sanaag waana ciyaar ka qoslinaysa marka aad daawato. bal haddaba markan aan wada daawano qaabka ay tahay ciyaarta leeladu. hablaha fasalka saddexaad ee iskuulka Al-Furqaan oo qayb ka ah ardaydii soo qaban qaabiyay bandhig dhaqameedkan ayaa yiri wixii dhiig lahow kaca dhaxalka awowgeen yaanay cunin dhurwaayadu ee daawasho iyo dhageysi wanaagsan. Let's go.
kale dhalinyarada fasalka saddexaad ee dugsiga sare alfurqaan oo bandhig dhaqameedka soo qabanqaabiyey ayaa waxay madasha ku soo bandhigeen ciyaarta jaandheerta. abwaan hore gacan yar oo ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed isla mar ahaantaana ka mid ahaa abwaanadii lagu macsuumay bandhig dhaqameedkan ayaa ciyaarihii iyo suugaantii kala duwaneyd ee ay madasha ku soo bandhigeen ardayda iskuulka Alfurqaan waxa uu bandhigan ku tilmaamay bandhigii ugu quruxda badnaa ee lagu qabto goobaha waxbarashada sida iskuulaadka iyo jaamacadaha gobolada dalka. waxaa farxad iyo bogaadin loogu filan bandhig suugaaneedka dugsiga sare Alfurqaan oo galabtaan idinku bishaaraynaya abwaanshada markhaatigu ka ah iyo Axmed Cali Faacid Aljaayo waxay jaamacadu soo bandhigeen wallaahi idinka qiimo badan afsalna looga loogaay hal ciyaar noocaas ma baan abwaanadu u baa wax laga faa'iideeyo la maaraayay ma ahay dhaqan kale agabkuna waa tuursana PDR sanadka ogaato
dhalinyarada yararka oo alfurqaan dhigata iyagana waa u bishaarina waxaa markii dibadda loo baxay dadku ay ayaameen dowladdeenu wacay shisheeyaha ka doorteen qaar baadiyoodood dibadaha u seexay haddii aan darayniyo ama dowlad loo helin inay duurka xurayaan doodkii ka keenow dhagirsan maadi doodeedu waxay tahay waxaadaynisaa qodoomaanta suudala dureemuu ku maran yahay kala doori maayee tugnood baa ka mid oo dakuug baa ka mid oo dufnood baa ka mid oo dayib baa ka mid oo dacul baa ka mid oo dugsiyada dalkiina iyo darwadaad furqaan baa darsi wax ka dhigataa doodeedu waxay arrintaa daadaa la baxo gallad weliba helkeed gegal weliba luuqdeed gocor weliba sirinkii garashada wagleelkeed gurgushaamin qaadkii garaad weliba dimirkii waxaan uga goleeya gabayada nimaan baran geeraarna shubi karin gedda shiribka gararay sadexgooyo tumi karin galbis aan ka luuqayn galab ay aroos tahay wala golaha lama tumo wala garasi kala sugo ummadda soomaaliyeed waxay leeyihiin dhaqan iyo hiddo wanaagsan ummadda soomaaliyeed marka dhaqankeedu wanaagsan afkeennii qiimaha badnaa oo erayada macaan laha dhaqan iyo dhigaal oo odagii soomaalida u dhihi jiray adigoo hu iyo hoyle oo kabiyo karin haysta oo war iyo wacaal qaba oo waxaan ku yidhaahdaa markuu baahida doona dhihi jiray faqiyo ruuxtooda lama arag oo waxaan ku arrintan soomaaliya dhibta ku hadli jiray waa laga tegey taariikhta dhibaatadana haysata waa arrintana raba in laga waantoomo oo dhaqankeenna dhaayamayaha waan ka arkaa dhirta mayaan ka leexdaa dhalintii dalkayga iyo dowladda barbaaray dhallaankan korayay dib u socodkayga dhaf daadashada dhulkaaga iyo deeftiisa iga oo dhiisha areesha leh iyo taa dhabbada taal midna dhaanka sula tahay midna ay bitada tahay daamisada guryaha taal saxaraha laguma dhawo oo dadka oo lagala helo baadiyaha waxaa kaloo jira siyaasadda dhaqankeenu xambaarsanaa waa anigii idin siyaasadda saxaraha nimaan tegna masiixankeeda ama sahanka loo tiri ma siyaasad buu garan sooraa nimaan naganama soohan ceelkeed ama aan sibraar wala kaasa suur ku xira karin hogaasa karin suur ma siyaasad buu garan dee maya dhaawdee marka laga soo tago ciyaaraha gabayada maansooyinka iyo heesaha bandhigan lagu soo bandhigay waxaa sidoo kale bandhigan madasha lagu qabtay ee iskuulka alfurqaan ayaa waxaa laga dhisay aqal soomaali weyn oo laba daryaala kaasoo dareen ku abuuray lamaanayaashii horay ugu aroostay aqalkan oo kale sidoo kale waxaa bandhigan lagu soo bandhigay agabka aqal soomaaligu ka kooban yahay agabkaasoo si weyn u soo jiitay ka qaybgalayaasha bandhigan maadaama uu qaybka yahay hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee aan ku faano wadamada caalamkana aan laga helin dhaqanka miisaankan oo kale tole dawadaasha qaahay qadarinta naga mudan meel kasta adduunyada ka joogtaan waa ku maasantii la socoshada barnaamijka intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii gaarka ah ee aan ku eegaynay bandhigii daha iyo dhaqanka kaas oo lagu soo gabagabeeyay iskuulka Alfurqaan waxaana bandhigani waa bandhig sanadla ah oo sanadkiiba lagu qabto hal mar iskuulka Alfurqaan waxa barnaamijka halka kala socodsiinayay idinna soo jeedinaya anigu Xasan Cismaan Aadan Xasan Dhagayare dhanka farsamada iyo kamaraduna waa saaxiibkii Cabdi Casiis Geelle dhammaan bahda TV-ga iyo idaacadda dowladda Puntland ee degmada Baran waxay idinku dhaafayaan sidaas iyo nabadgelyo